السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan nagala socotaan waa Setaya Production bartaan ku leenahay YouTube barashada cilmiga kombiyuutarka iyo xogaha muhiimka kamid noqoshada 90 qof ee ku xiran bartan YouTube ku leenahay kana faa'iisto koorsooyinka muhiimka ee halkan ku soo gudbino. koorsada ma socota waa koorsada QuickBook Enterprise Solution waan 10kii lixaad ayaan hore soo qaadanay oo kaga soo hadalnay sida markaasi hantiiluhu markaas lacag u soo dhigan karo ganacsigiisa bilowga. haddaba haddii aan soo dhiganay in hantiiluhu lacag soo dhigan karo waxaan u gudbi doonaa casharka kan ku xigo noqonaya casharkii 7 balse inaan gudbin fadlan Facebook soo tag halka Facebook search-ka waxaad ku qortaa engineer calaamada Mahdi Setaya deetana soo follow garee kana mid noqon 9,170 qof ee ku xiran barteena Facebook. intaas kadib aan gudagalnay casharkeena maanta oo noqonaya casharkii 7 ee QuickBook Enterprise Solution version 2024. casharkeenani ama koorsadeenani waa koorsadii bisha Ramadaan oo halkii ka sii socota. maanta waxaynu eegi doonaa waxa loo yaqaan report waxayna ka dooran doonaa meesha ku qoran tahay company and financial ayaan soo daadegi doonaa barta ku qoran tahay balance sheet standard kan clicksin doona. balance sheet standard keena markaynu eegno waxna eegi doonaa lacagta nootaala ee markaas ganacsigu hadda haysto. hadda markuu sidan kuugu soo baxo waxaad arki doontaa in shirkadda ganacsiga magaceedu yahay Ramadan Wholesaler. asset-ka ama lacagta aan haysanaa ee cash Ramadan Wholesaler waxa weeye sad merchant-ka oo 49191 waxa uu jiro $30,000. lacagtaasi wax liability kuma jiraan balse equity-ga ama hantiiluhu waa Mahdi Cabdi Jaamac $30,000 buu haystaa. total equity-gu waxa weeye total equity-gu waa 30,000. waayahay sidaa markaan soo eegnay aan ogaanay lacagtaan haysano waxaan uga gudbi doonaa waxa loo yaqaano sidee ayaynu u soo samaysan karnaa cidii aan alaab ka soo deynsan lahayn ama ka soo qaadan lahayd. haddaba sidaad u soo samaysato cidda alaab ka soo deynsan lahayd ama ka soo qaadan lahayd oo vendor loo yaqaano waxaad tegi doontaa meesha ay ku qoran tahay vendors. click marka siiso waxaad ka dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay receive item. waxay soo gaaray itemskii aan interbills iyo warqadii markaasi aan ku gashan lahaa ee qaansheegtahay biilka ay oo la socota ayay soo gaadhay. halkaas ayaad click si doontaa dabeetana daaqadan ayaa ku furmi doontaa. daaqadaasi marka ku furanto waa marka imika wali ma sameynayna vendor laakiin waxaan eegaynaa marka vendor soo sameyno daaqada ku furmi doontaa ayaan tusaale ka bixin doonaa. daaqadaas ayaa ku soo bixi doonta marka doonaysid in vendor alaab ka soo qaadato. ugu horeyn faladaas ayaa furi doonta vendorka ayaa ugu samaysan yahay aad soo samaysan doonta. haddii kalena vendorka halka ka soo doorto ugu samaysan yahay add new vendor baad doontaa. halkan waxaad gelin doontaa addresska iyo area-da laga helo vendorka wax ka soo qaadanayso. bill-yuga halkan wuxuu yiri bill-yuga intaas wax saan doona. bill-yuga halka waad kordhin kartaa waxaad oran kartaa maanta geliyo maaha xasaado intaas markay tahay bisha 6 3keeda aan casaan ha noqdo. date-ka oo qaadanayna date-kaas uu noqonaya halkan ku qorantay item inta badan halkaas active ah express ku qortay waad ka soo guurisaa item ayaa dima doontaa dabeetana shaygii aad markaas soo samaysatay halkaas geli doontaa. markaas qaabkaas waa qaab hordhaca oo ah qaabka hadhow la sameyn doonto. laakiin ugu horeyn waxa muhiim ah inaad soo samayso vendor. si vendor loo soo sameeyo cidda alaabta ka soo qaadanaysana halka ay ku qorantay vendors ayaa click sin doontaa dabeetana aad waxaad tagi doontaa meesha ku qorantay vendor center xarunta markaasi dadka deynta laga soo qaato ee ganacsiga ku soo qaato ama alaab qaybiya loo yaqaan qofka alaabta qaybiya ee jumladaha laga soo qaato. waayahay marka saa ugu dhufto daaqadan ba soo bixi doonta. daaqadaas markay saa soo baxdo halka ay ku qorantay new vendor ayaa click sin doona. waxaan ka sii dooran doonaa barta ku qorantay new vendor. haddana click marka siiyo daaqada ayaa soo bixi doonta ciwaankeedu yahay daaqadaas ay ku soo bixi doonta ciwaankeedu noqonayo new vendor.
new vendor haddaba saa u samaysto bartaas vendorka namekiisa ku qori doonta. waxaa la yihahdaa maxamed xasan jidwaaq. maxamed xasan jidwaaq baa la yihahdaa. maxamed xasan jidwaaq xilliga uu ku noqonayo vendorka waa ama uu kusoo biray ganacsiga waa intan. haddii markaasi opening balance uu ahaayo ganacsiga ku lacag hore ku lahaana bartaas gashan doontaa lacagta halkaas tusaale gelin doontaa. haddii aad waxba ku lahayna waa iska dhaafi doontaa. companyga magaciisa aad qori doontaa. magaciisa oo saddexan bad haddana kan ku qori doontaa. bartaas ayaa leeyahay magacaas ayaa soo koobiyo doontaa. koobi marka soo siiso waxaad ku qori doontaa magacaas. waxaad kusoo koobiyo doontaa bartaa ku qoran tahay build form ayaad ku koobiyen doontaa. build form marka saa ku koobiyeysid halkan hoos bay soo degi doontaa. bartaasaad iman doontaa account nameka, paymentiga, waxyaabahaas oo dhan, credit limitka hoos ayaad uga sii degi kartaa. information saad u raadiso. vendor tabeka wuxa uu bixiyo annaga vendorkani waxa weeye waa supplierska ayuu kamid yahay. dabeetana okay ayaa sii doontaa. okay marka saa u siisid maxamed xasan jidwaaq aan soo sameynay balse wax balance ah oo lagu leeyahay aan jirin. habkaasi waa habka loo soo sameeyo waxa loo yaqaan vendor. sidaas ayaa loo soo sameeyay. vendorkuna waxa weeyaan vendor tabeku waa suppliers, waa cidda adigu adeyn ka soo qaadato ayaa la yiraahdaa suppliers ama vendor. bill formkiisuna waa kaas saas uu ku soo sameysmay. bal haddaba casharkan ku xiga waxaan ku qaadan doonaa sidee baan alaab uga soo deysan karnaa ninkan la yiraahdo maxamed xasan jidwaaq oo supplier ah. sidee baan alaab uga soo qaadan karnaa annagoo markaasi aanan lacag bixinayn. casharkan waa cashar muhiim ah. fadlan u share garee cid kastoo aad jeceshay inay ka faa'iidaysato. wixii faahfaahinana koorsadu intan markay kasii ballaarato waxaa lagu dhigan doonaa qaab telegrama. haddaba si aad macluumaadka hordhaca u fahanto fadlan iska soo diiwaan gali whatsappka 063 434 255.